arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada ee guud ahaan Soomaaliya waxaan si gaar maanta u gudageli doonaa doorashooyinkii Somaliland kuwaasi oo ku bilaabmay si dimuqraadiyada hase yeeshee ay soo dhex gashay tashuush iyo waliba qalalaase meelaha qaarkood ka dhacay waa maxay dooraadka ay ku yeelan karto guud ahaan wadanka Soomaaliya gaar ahaan Somaliland sida looga bixi karaa heerka ama meesha haatan la marayo maxay noqon doontaa natiijada doorashooyinku waxa kale oo aan ku gudageli doonaa oo aan eegi doonaa dhinaca Soomaaliya dawladda federaalka kaalinta kaga aadan ama doorkeeda Somaliland iyo waxa ay ka qabto waxaan eegi doonaa iyana maxaa ka jira Dubai oo ay madaxda maamul goboleedyadu ay u tagaan maxaa isna ka jira in khayraadka badda shirkado ajnabiga loo ansixiyay oo baarlamaanku uu raali ku yahay kusoo dhawaada mar kale isla barnaamijkaasi jaamac xasan khaliif kusoo dhawow adiguna stuudiyan علي والمحسنة وأنا كنت إن شاء الله. waayahay aragtidaada guud ee doorashooyinka Soomaaliland aan ku bilowno بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي مرة بقى وعدين ما علينا يا أديك إيو صاحبك ياسين مدة لبعض حوالي أرنت تنهض Soomaalidu cali waa ogtahay xaalkeedu beel adag burunti maraya siyaasad ahaan qolo walba xindaab gaar ah oo dadkiyadu gaar ah oo Soomaalida kale xitaan xidhi lahayn qolooyinkan waqooyi ama Somaliland ana waxaan qabaa in dad Soomaaliyeed yihiin shacabkeena yihiin dadkeena yihiin aragtida siyaasadda waa loo kala duwanaan karaa wali waxaan qabaa Hargeysa inay tahay caasimadda labada Soomaaliyeed shacabka degan waa shacabka yagi dadka hor fadhiya ee madaxda u ah wixii ay qaldaan marba waxaan jeclahay inaan saxno laga hadlo tusaaleeyo la tusay Soomaaliyiin shacabka Soomaaliya aan la duleyn arrintan ah doorashada anigu aad baan runtii u soo dhaweynaya inay si nabadgelyo ah oo bislaasho leh isugu yimaadaan oo qofka ay doonayaan inuu xukuumad dooran karaan aad baan soo dhaweynaya wali mabaadi'dii aan ka qabay waa go'ayna iyo waa meesheedii dood bay u baahan tahay waxay macnaha waxa sabab waa aaminaad laakiin doorashadii ka dhacday ee ay ku dooranayeen hoggaan iyaga hogaamiya si wanaagsan oo habboon bay runtii codka u rideen laakiin shaqooyinka dhacay iyo mid dambe oo hadda la filayo inay dhacdo aadna waa u cambaaraynaya waxaana qabaa in ummadana loo naxo ilaahay laga baqo doorashada sideedabana adduunka dhan bay ka tahay caam waxaa caamka ah in la isdhaco la isxoogo qala dhici karo waliba Afrika Maraykan baa ka dhacday waqti 2000 waxaa madaxweynaha guuleystay wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Al Gore baa guuleystay Bush baa qaatay dadku waxay ixtiraaman bay leeyihiin ismailaynin Al Gore hadda koo jiro siyaasad kuma jiro inta wuxuu ka adduunku wareegay wuxuu ka hadlaa hawada iyo adduunka mashaqada shaqa kale oo caan ah la yaqaan buu yeeshay marka arintaas doorashada ah si wanaagsan bay ugu dhacday inay wada noolaadaan oo nabadgelyo haystaan haliban ka ah waaye saameynta leeg bay doorashada Soomaaliland ku yeelanaysaa Soomaalida kale horta aliyow anigu mar walba waxaan qabaa Soomaalidu waa isku mid waxa way caddahay wax badan ay isdheereen qoys Soomaaliyeed meel u baxayo isagu hawsha jaan goostayna waxa ugu qurux badan oo ugu soo dhow oo la fiirin kara runtii marka laga hadlo qalad badan bay galeen oo wadaniyada iyo dadnimada macnaha wadajirka Soomaaliya ka galeen waqooyi ka galeen laakiin si ururkoodii wada aragtay inuu wax ka qabiilka ka daba yimid qabiilka dadka qabiilka gaarka ugu baxa qabiilku meel ma fariisto waa basasha leeyahay kale meel buu tagay hadda waxay maraysaa inay ka duwanaan kareen Soomaalida xamar joogta iyo kuwa kale caadiga ah ee meelaha wax qaldan yihiin caanka ku noqday inay dawlad ay leeyihiin oo taabagal dhistaan marka waqooyigu wixii ay kaga lahaayeen waa kaga duwan waxa cadan inay kaga duwaneen wax badan of course waa wanaagsan yihiin wadba kooda noolaayeen laakiin qaladka ka dhacay laakiin jaamacu dad badan baa qaba fikirka ama Soomaaliland lafteedu in ay gooni isu taagtay oo gooni istaageedu ku dhawaaqday 1991 dhinaca reer gooni isu taagana Soomaaliland waxay aaminsan tahay inay yihiin reer badan oo isku jira oo aaminsan in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'aan marka inagu aan in badan waqti ku luminayn
ma go'i kartaa mise ma go'i karto waxaan doonayaa inaanu barnaamijkeennan kaga hadallo uun bal qaabka dimuqraadiyadda ee somalilan ee ay kaga duwan tahay meelaha kale ee gobollada soomaaliya oo qaarkood aanay xisbiyo kala duwan lahayn qaarkood hal reer quri uu taliyo marka farqiyada loo kala eego dimuqraadiyadda somalilan miyaanay ahayn mid muuqata oo lagu hambalyeyn karo caliow aan ku celiyo mar labaad waxaan ku bilaaba hadalkayga qof ahaana anigu aan aaminsanahay wax alla wixii wanaaga ay qabsadaan waa soomaali waa loo aayaya hargeysa qof alla qofkii iyo qoladii kasta oo dhibaato ku dhaco Soomaaliya way aadan waa la degaa waa magaalo Soomaaliyeed waa shacab Soomaaliyeed waa run way ka duwan yihiin waxyaabo badan bay kaga duwan yihiin xagga maamulka oo dhaqan ahaan dadku waa kala duwanaan karaan laakiin jabka Soomaalida gaaray xilli kale iyo dood kale waranta ayaynu u baahannahay aan kaga doodno mas'uul ma ka yihiin lagu ku leeyihiin waxaana ugu weyn jabka wadaniyada weeye iyo waxda ummadda Soomaaliyeed taa xilli kale barnaamijna laakiin way muuqataa inay isdoortaan in la noolaan karo qalada waa galaan inay iyagu wada noolaan karaan waa ta aan leeyahay in ay qulqulad sameeyaan islaayaan oo qanci waayaan oo waxa dhex yaala ku qanci waayaan oo xitaa qof qalad galay loo dul qaadan waayo hadday taa ay bislaashaha gaarin waa dhibaato aan qabo in iyagana dhib u tahay ummadda Soomaaliya dhib u tahay meel joogaan waaye dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u hambaleysay doorashooyinka ka socda Soomaaliland dowladda federaalku markay u hambaleysay Soomaaliland oo kale oo ay yiraahdaan dariiqii dimuqraadiyadda ay qaateen si wanaagsan bay u socdaan miyaanay qayb ka ahayn iyagu laftoodu in Soomaaliland ay toos bay u aqoonsan laakiin ay u aqoonsan yihiin inay tahay dowlad gooniya oo tashatay oo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkii samaysanaysa علي وانت انا تاكا جوابين waxaan jeclahay in yar baan dib ugu laabanay arinta waqooyi aad iyo aad baan soo dhaweynaya inay wada noolaadaan wada haystaan waa ku taageerina waxaan nafaraynaa baaq ah inay dul qaataan oo shacabka Soomaaliyeed ay isku leeyeen aan ka hadlay dadka siyaasiyiinta xisbiyada ku tartamay meesha taasi waa dardaaran iyo afkaar aan qabno arinta kale ee dowladda dhexe waxa muuqato cad nasiib darro dowladda dhexe waxay ka mid tahay in muddo waxay ka mid ahayd waxyaabaha Soomaalida ama waqooyiga fogeynaya ama Soomaalnimada runtii aan soo dhaweynaynin tusaale ahaan waxay markay hadleen golaha wasiirada hadlay oo fadhiistay oo ka dooday arinta waxaan dhageysanayaa fayga golaha wasiirada waxay u hadleen waxaad moodaa sharci bay jabiyeen dowladda Soomaalida dhexdeeda dadka Soomaalida wax isku hayn jiray bay jabiyeen oo ah waxay u hadleen si dowlad kale oo ka madax banaan oo iyagu ayaan gacan ku lahayn hadda tana gacan kuma laha macnaheedu waa nasiib darro dowladda dhexe ama kuwa hadda jooga ha ahaadeen ama kuwa hore ha ahaadeen qofka tegaya ajnabiga ee hargeysa tegaya ee waqooyiga xidhlal iyo wadamada ka kalluumaysanaya cid waxba kama hadlaan awoodna kuma leh iyagana shacabka Soomaaliyeed uma qeexin inay macnaha uma sheegin inay ka baxsan tahay Soomaaliland macnaha unionka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed marka anigu waxaan qabaa inay ku degdegeen sida hadalka u dhigeen dowladda dhexe waxay ahayd inay yiraahdaan mar walbana waa yiraahdaan inay waxa ka jooga waqooyiga waxa ka jooga wakiila ka jooga wakiila ku xigeenka barnaamijka waa waqooyi wasiiray leeyihiin golaha baarlamaanka ku jiraan aqalka sare ku jiraan dowladdii dhexe waa ka mid marka waxaan ka duwan baa laga rabay bilowgii doorashada inay ku leeyihiin inay ka hadlaan macnaha arintaasi cudurdaar u noqon mayso inay awood la yihiin dowladda dhexe oo ay awood ay ku muquuniyaan ama kula hadlaan gobolada Soomaaliya uma saamaxayso waxaan laakiin qaba waxa weeye afkaarta iyo mabaadi'da inay dowladda yihiin sheegaan oo muujiyaan waaye aan eegno dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya aan ku bilaabo maxaa ka jira warka ku saabsan in khayraadka Soomaaliya shirkado ajnabiga qaarkood loo ogolaaday oo aan hore u sheegnay barnaamijkeennii hore in shirkado ajnabi ay ku lug leeyihiin in khayraadka Soomaaliya ay la soo baxaan shirkadahaas imka waxa leeyahay baarlamaanka laftiisa ayaa og oo ansixiyay arinta maxaad ka oran lahayd Jamal waxaan ka oran lahaa khayraadka Soomaaliya in badan waanu ka hadalnay umad Soomaaliya farbadan baan ka hadasha xilligii la baahin lahaa laga hadlaa lama gaarin ma taagna waa premature dad aan dowladnimadii isku ogolayn dad aan nabadgelyo haysan dad systemka iyo mabaadi'da ku shaqeynaya ay qaldan tahay dad xerooyin kala jira oo cid kale u taliso
khayraadkooda wixii ay kaga hadlaan waxa weeyaan waa uun inay ku marti qaadaan cadow shisheeye waad ogtahay gobollada bari waqooyi bari iyo kuwa waqooyi iyo koonfurta meel walba shidaalkii meelaha ku jiray khayraadka waa dulaan baa lagu yahay wadamada lacag ku bixiyaa jira iyadoo oo waad ogtahay hadda baarlamaanka horreeyay shaqo fiican bay qabteen weliba ay soo xuleen dagaal ogayaashu waxay yidhaahdeen markii badda soomaaliya laga hadlay iyadoo kenya waddan soomaaliya haysata oo wadanka norway oo kale ay lacagaha bixinayaan oo la kuleeyihiin soomaaliya dhulkeeda in hoos gudaha badda loo galo waa arrin taagan dad soomaaliyeed oo madaxa ahaan jiray markaa madaxa haddana la yaqaan baa lo kule marka arrimahaasi waa arrimo aan waafaqsanayn sharciga baarlamaanka horeyna way caddeeyeen wayna sheegeen waxay yidhahdeen badda iyo cirka iyo dhulka soomaaliya ilaa ay cagaheed sugtaa lagama hadli karo marka khayraadka waxaa runtii shaacinaya waxa weeye dad soomaaliyeed oo ku hungoobay dad soomaaliya dhexdooda ku hungoobay oo doonaya dan gaara leh oo raba inay wax garaabgareeyaan baddii bay waxa geliyeen maraakiib waxaa hadda taagan maraakiib la qabtaa jirta oo lagu qabtay Filibiin lagu qabtaa jirta oo soomaalida gobollada qaarkood la siiyeen khayraadka wadanka hadda waxaa la leeyahay waxaa mas'uulka oo soo cusboonaysiiyay prime minister xasan cali khayre some oil oo hore uga shaqayn jiray isagu prime ministerku haddana waxa weeyaan waa tay warqad qoreen ee wasiirka petroolka beeniyay oo ay leeyihiin dawladda nala og shir bay qabanayaan maalinta marka waxyaabahaas oo dhan waxaan oran lahaa waa arrin qalad ah baarlamaankuna kuma degdegi karo inuu ansixiyo waxa baarlamaanka waxaa looga fadhiyaa arrimaha hadda xasan cali waan ka hadlayno ee waqooyiga Soomaaliya iyo gobollada waqooyi bari iyo koonfur iyo wadankii in laga hadlo security nabadgelyada laga hadlo in wadanka ciidan loo dhiso in wadanka dhaqaalihiisa la sameeyo lacag in la sameeyo Soomaalidu leedahay waxyaabahaas u bannaan oo hadda u yaala laakiin khayraadku hadda uma yaalo waaya waxa jirta madax badan oo gobollada ama maamul goboleedyada Soomaaliya kamid ah oo Dubai ku sii qulqulayaan Dubai maxaa ka jira Jamal ishiisa lagu arkaa ushiisa lagu tumayo Soomaaliya madaxda qaranka ee dowladda dhexe waxaa tijaabiyay dowlad goboleedyada tijaabiyay waxayna u tijaabiyeen si aan sharci ahayn markii shacabka Soomaaliyeed arkeen in dowlad goboleedyadu qalad ku jiraan inay wadamo kale la hadlaan iyagoo dowladda dhexe dhaafaya oo cid kale gacan ka helaya shacabku dowladda dhexe waa u hili laakiin uu nasiib daro dowladda dhexaad moodaa inay leexday anigu uma arko inay sharci tahay dowladnimada meel kaga jirto in madaxweynaha qaranka markuu meel aadayo qofku doono ku xasan kara waftaar ku xasan kara laakiin wafti kamid noqon kara madaxweynaha laakiin waxaynu ognahay dowladaha imaaraadka iyo xulafada Sacuudi Arabiya inay Soomaaliya lacag ku bixinayaan inay burburiyaan oo qaybiyaan safiirkii imaaraadku waa ogtahay Wikileakska inuu yiri Mareykanku wixii uu ficilay ay qabteen wuxuu ahaa markay ciidanka Itoobiya Soomaaliya geliyeen ciidamada xamar ku tababaran in badan markoo hadal dawladdu way dagaalamayaan dhexdhexaadnimada ay qaadanay diidan yihiin dowlad goboleedka la socdaan dowlad goboleedka waa taageerayaan lacag bay ugu qaybinayaan marka in madaxweynuhu raaco oo golo isagoo ceebaysan golo la tago sharciga dowladnimada waa ka soo horjeeda xitaa hadduu waqtiga ku darsado waxaan qabaa inuu xilliyadan u soo darin soo socdo inta dowladda Soomaalidu bogsoonayso ka waxa ka bogsoonayso loo arkay nimankan qudhoodu ay restoran u qaadanayaan oo ummadda maqlayaan laakiin nimankii ka tuun weyn dowladda dhexe oo meel kale loo gacan haadinayo in madaxdu raacdo sharcina maaha dowladna sida lagu heli maayo shacabku waxay u hiiliyeen dowladda dhexe shacabku gobolada ka yimaadeen gobolada loo rajeyn maayo khalad ciidan ka gelimayso wixii mabaadi iyo wixii development horumar la sameeyo waa in dowladda dhexe ay martaa way laga wada hadlaa laakiin waxaan qabaa imaaraadku wax khayr Soomaaliya u yeeri maayaan madaxweynuhu inuu tago oo imaaraadka soo horkacaya dowlad goboleedyada waxaan isleeyahay waa qalad weyn oo dowladda laga galay waana wax aynaan meesha aynu aan naga qaadayn waayo way caddahay dowlad goboleedyada inay midoobeen oo u mudan dowladda dhexe way caddahay waaye marka culays inta leeg ku keenaysaa in maamul goboleedyada madaxdoodu ay u mudoobaan oo ay ka dhan noqdaan dowladda federaalka maxaa ka iman kara culayska waa muuqdaa culays weyn dowladda waxma qaban karto waxaan amaano aynu xusnay oo aan xog ku helaynaa in bangiga dhexe soo diyaariyay qorshihii lacagta lagu sameyn lahaa dowlad goboleedyada diidana saxaan waxaaba la weydiiyey gobolada
lacagtii qaranka in la saxo oo iyagu ay ogolaadaan marka dowladdii tunkeediiba iyo xoogaad moodaa inay ka taweynaadeen baad moodaa anigu waan taageerayaa gobollada soomaaliya inay dhismaan inay horumaraan waa dadku waa innagaa iskala waddanka laakiin waxaa meesha aan qabanaynin dowlad baan rabnaa inagoo kala socono caalamka u tagay inama qaban karto mana geyno in badanna waa laga wada hadlay oo Soomaalida waa ka hadashay dadka badan baa ka hadlay wadamada caalamka waa weyn baana waxaan sameynay oo la kulay way ama Ingiriis ha ahaato ama Mareykan ha ahaato Carabaha waxba iska keenaan imaaraad waxba ma keenayaan haddaan la ogeyn way aan ku sii tada u dambaysa ama kelmadaada waan doonayo inaad diiradda saartid wixii aad talo soo jeedin lahayd madaxda maamul goboleedyada waxaan leeyahay maamul goboleedyada madaxdeeda ummadda Soomaalida u tura idinkuna taariikhda gala ummadda hor fadhidaan ummadda kale ka goynina dawladda dhaxal la shaqeeya sax qabta waxay ku qaldan yihiin ka qabta idinku qalad intaas aan oran lahaa dawladda goboleedyada waxaan oran lahaa oo kale dawladda dhexe madaxweynaha iyo dawladdiisa inay go'aan qaataan baa laga rabaa way caddahay arrintii beerdhagax baarlamaanka guddiga loo saaray inay yidhahdaan qalad bay ahayd qalbi dhagax inay ka wada hadleen soo gabagabeeyeen inay sheegaan oo ummadda Soomaalida wixii ka leexday u raadiyaan lana yimaadaan mabaadi iyo qorshe cad oo ummaddan lagu hogaamin karo yaa muhiim ugu dambeyn mar labaad iyo mar saddexaad waxaan oran lahaa oo talo soo u diri lahayn walaalaha waqooyi yay dagaalamin xasiloonada ha ilaaliyeen waa wadan Soomaaliyeed waa loo aayaya wixii qaladaada iyo siyaasad lagu kala duwanyahay waa la isaga imaanaya ummadana kala tagi mayso meel kala aadmayso intaasaan oran lahaa oo ku gabagabeyn lahaa aad iyo aad baad mahadsantahay kaasina daawadayaal waxa waa Jaamac Xasan Khaliif oo aanu ka wareysano arrimaha dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada ee guud ahaan Soomaaliya barnaamijyadani ayaa noqon doona kuwa taxana ah oo toddobaad walba qayb idinka soo gudbino hadba markaasi waxa culayska siyaasadeed uu saaran yahay dhinaca Soomaaliya tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kala inta dib u kulmi doono daawadayaal waa Cali Xaraaro dhamaantii midka tagaya sida iyo nabad gelyo